cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan degmada Awdhiigle ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 250 qoys oo kamid ah qoysaska danyarta ee ku nool degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidanka Kumaandooska Gorgor 14 Oktoobar iyo ciidanka sida gaarka ah u tababaranay xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan goobta raashinka lagu qaybiyay ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka ay u istaageen difaaca iyo garab istaagga shacabkooda. Gaashaan Sulnuuge taliyaha ururka 3aad guutada 17aad ee Kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor, gaashaan Axmed Maslax taliyaha ururka 66aad ee guutada 14 Oktoobar iyo taliyaha Cabdullaahi Mustafa Cali Madaala Qaran oo ah taliyaha ciidanka sida gaarka ah u tababaranay xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goobjoog ka ahaa goobta ciidanka xoogga dalka ay raashinka ugu qaybiyeen qoysaskan danyarta ah ee ku dhaqan degmada Awdhiigle. Qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyay ayaa kaga mahadceliyay ciidanka xoogga dalka deeqdan ay soo gaarsiiyeen, waxaana ay sheegeen in farqi weyn uu u dhaxeeyo xilligii maleeshiyaadka al-shabaab ay joogeen Awdhiigle iyo haatan oo halkaas ay joogaan ciidanka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed. Geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo shacabkooda ka difaacaya cadowga ayaa dhinaca kale waxay caawinayaan kuwa danyarta ah ee u baahan garab istaagga. Cabdifataax Cabduqaadir Aqyaar, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose.